This Somali family is so vulnerable right now. And she saw me in my vulnerability and offered to take care of me. These are the kinds of people that ICE is trying to deport. Stop taking our neighbors. Please, they're good people. Please don't support ICE. waxaa guul weyn oo Soomaaliyeed ah dadkii Ameerikaanka dhaladka ahaa ama dadkii cadaanka ahaa ay qulubtoodii soo jiidanayaan Soomaalida gabadhan aad aragtaan lagu magacaabo Kate 11 ayaa waxay ka sheekeynaysaa qiso dhaxmartay ayada iyo deriskeeda ama dadka apartmentiga la degan oo Soomaali ah maadaama apartmentigan ay gabadha ku cusub tahay ee mar dhow soo degtay magaalada Minneapolis ku yaalo ma aysan sheegin location-ka saxda ah balse waxay sheegaysaa in ay la kulantay dad Soomaaliyeed oo aad u naxariis badan oo ayada oo fargareeyay in ay ka fargareeyaan ama ay caawiyaan ayaga oo isla familigaas vulnerable ah oo aan wax badan haysanin waxay sheegaysaa oo sheekada ku bilaabaysaa Kate 11 in macnaha ay sheegay min apartmentigaasi ee mar dhow soo degtay ee dadka deriska la ahaa ama Soomaalida deriska la ahayd ay booqanayso gurigooda ugu tagayso oo waxyay u geenayso si macnaha ay sheegay deris wanaaga iyo macnaha ay sheegay jaceylka ay ula wadaagto balse waxa lagu bedelayaa in ay soo siiyaan dhinacyo iyo waxyaabo macmacaan ah iyo waxyaabo noocaas ah ay macnaha ay sheegay jawaab uga dhigayaan sidoo kale gabar yar oo Soomaali ah ayay waxay sheegaysaa in ay si kal iyo laaba u soo dhaweysay oo xitaa ay u offer gareysay in mustaqbalka haday wax u baahato ay ka caawin doonto oo deriskaasi Soomaalida ah wax wanaagsan ay ka soo gudbisay gabadhan lagu magacaabo Kate 11 ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota degan marka taasi waxay ku tusaysaa wanaagii iyo deris wanaagii iyo waliba generosity ama maxal ay sheegay gacan furnaanti Soomaalida iyo naxariistii in dadkii Ameerikaanka ahaa qulubtooda ay degayso oo gabadhan si macnaha ay sheegay qalbiyan ah ayada baraha bulshada ay ugu baahisay wanaaga ee Soomaalida leedahay sidoo kale ay ka codsatay in aan la support gareynin deportation-ka Soomaalida ama dadka la tarxiilayo sidoo kale gabadha qaybaha ugu dambeeya ee muuqaalka aan idin fasixi doono waa ay ooyeysaa oo qalbiga ayay ka ooyeysaa si naxariis leh ayay waliba macnaha uga falcelinaysaa falkaasi iyo waxa ay la kulantay ee naxariista ah marka taasi waxay ku tusaysaa Soomaalida in macnaha ay sheegay caalamkii oo dhan hadda ay baranayaan inay yihiin dad gacmo furan dad qof kasta caawiyo dadka oo dhan soo dhaweysto dad deris wanaag leh oo macnaha waxa ugu muhiimsan waa deriska marka deris wanaag in ay yihiin ayay sidoo kale gabadhani bartaasi ka faafinaysaa sidoo kale dareenkeeda ayay muujinaysaa oo macnaha ay sheegay waxay leedahay deriskeena yaana la tarxiilin oo hal la joojiyo qof kasta oo macnaha ay support gareenayo ama ku support gareenayo in ay Soomaalida tarxiilaana ha joojiyo bal muuqaalka aan idin fasaxo. Hey, I'm Katie. I live in Minnesota. Can I tell you about meeting my new Somali neighbor tonight? I just moved into a new apartment last week. The place where I work was giving away free bouquets of flowers today, and I didn't need any, so I grabbed a bunch and I told my kids, let's use this as an opportunity to go meet our neighbors at our new place. So me and the kids went to knock on some doors and meet some people, get to know our neighbors, and give them flowers. Now, most of our neighbors in this apartment complex are Black and brown people. So I was not going to be surprised if they didn't want to open the door for a strange white person right now. But one of the people that opened the door was a young Somali woman and her mother. Told her why we were giving away the free flowers. She was very excited to take them, and then she offered us candy, which was cool. And then do you know what she said? She looked at me as a new neighbor and a single mom, and she said, hey, if you ever need help, let us know. We'd be happy to help you, like if you need groceries or something. This Somali family is so vulnerable right now. And she saw me in my vulnerability and offered to take care of me. These are the kinds of people that ICE is trying to deport. Stop taking our neighbors. Please, they're good people. Please don't support ICE. si kasta oo la isku dayo in lagu dhibaateeyo si kasta oo la isku dayo in macnaha ay sheegay dhulka lagu la galo caalamka oo dhan haday la isku ka taga xitaa
waxyaabaha noocan ah daraadood ee Soomaalida qalbi wanaaga iyo daris wanaaga iyo micnaha dadka sida aan u soo jiidanayno ayaan wax loo dhigo lahayn oo xitaa dadkii nacba ayaa Soomaalida jeclaanahayo oo sida aad arkaysaan gabadhan qaabka ay uga warantay arintaasi oo dhameystiran ayaa ah markii aan faahfaahiyo in micnaha meel ay ka shaqeyso buildingkan maadaama ay mar dhow ku soo guurtay oo Soomaali u badan tahay oo magaalada Minneapolis ku yaalo waliba xaafadaha Soomaalida ee Cedar Riverside in micnaha buildingkaasi ay soo degtay mar dhow marka meel ay ka shaqeyso ee iyada shaqaale ka tahay ayaa waxa laga soo siiyay ubaxyo fara badan oo shaqaalaha loo qaybinayay oo micnaha lagu abaalmarinayay marka ubaxyadii ay meel ay kala dhigto weyday marka waxay uga faa'iideysatay fursadaas in ay ku barato dadka ayada dariska la ah familkaasi oo noqday family Soomaali ah albaabka ayaa gabar yar ka furaysa sida ay warka u dhigtay gabadhii markii albaabka ka furto way soo dhaweynaysaa ubaxiina way ka qaadanaysaa soo dhaw ayay leedahay micnaha ishay gudaha u soo gal guriga taasi waxay ugu bedelaysaa in ay u qaybiso in ay siiso ayada iyo gabadheeda maadaama sida ay sheegtay ay single mother tahay ayada iyo ilmaheedaba inay u qaybisay candy ama waxa loo yaqaan macmacaanka ay siinaysaa gabadha yar ee Soomaaliyeed marka sidoo kale sida aan arkaynayba saacadihii la soo dhaaf Soomaalida si aan caadi ahayn ay isku xilqaantay oo dadkii cadaanka ahaa ee banaanka u soo baxay ayaga oo micnaha ay sheegay ka mudaharaadahayo gabadhii xuquuqdeeda lagu tuntay ee Soomaalida u halgamaysay ee Renee Good ayada oo halganka Soomaalida ay ugu jirto iyo difaaca ay ka difaacayso qolooyinkan ICE daraadeedna u dhimatay ama nafteeda u weeday oo sujuuda laga toogtay dhiigbaxna u dhimatay oo ilaa hadda dawladda Mareykanka madaxweynaha ka soo bilow ilaa iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii cunsuriyiinta ahaa ee midigta fog ee qolooyinkan Republicaanka ahaa ee micnaha inkirsan yihiin dilkii gabadha in meel lagu sheego ayada oo uu kaafargareeyay baariyoolkeedii iyo micnaha ay sheegay waxyaabihii qarashada ku baxayay oo dhan uu meel saaray mayorka magaalada Minneapolis Jacob Frey marka arintaasi ayaa sidoo kale Soomaalida waxay geenayaan dadkii banaanbaxayaasha ahaa si ay Soomaalida u difaacaan oo qolooyinkan ICE uga hortagaan ay ugu abaalgudahayaan inay u qaybiyaan sambuus iyo bur iyo waliba shaax kulul ayada oo xilli winter ah lagu jiro oo baraf dhacayo oo micnaha ciidina soo bixi karin ay naftoodii hurahayaan dadkaasi ayaga oo aan micnaha ay sheegay waxba ka soo qaadeen xitaa hadii in case la toogto ama qolooyinkan ICE ay xabado ku furaan dadkani aan waxba ka soo qaadeenin marka taasi waxay ku tusaysaa wanaaga micnaha ay sheegay caalamka iyo waliba dadkii reer Mareykan aan gashanay xaaladana sidan way iska sii bedelaysaa qolooyinkii cunsuriyiinta ahaana way yaraanayaan ayaga oo si qalbiyan ah u dareemahayo Soomaalida micnaha hadii ay ataagareyn lahaayeen xataa dadyow kale oo cadaan ah oo wanaaga Soomaalida arkay ee baraha bulshada ku faafinayaan in Soomaalida ay yihiin dad wanaagsan dad ku dayasho mudan dad wadankani xuquuq ku leh dad wadankan aan laga xigsan karin oo micnaha ayaga oo badan xitaa micnaha ku dhiiri gelinayo dawladda Mareykanka inkastoo aysan ogolaanaynin in ay imaadaan wadankan Mareykanka wanaaga Soomaalida iyo soo dhaweyntii ayaa heer caalami gaartay ama international ama heer dadkii caalamka waliba ee ugu population badnaa ama ugu xasarada badnaa ee Mareykanka dadkoodii waliba baraha bulshada ku jiray ee baraha bulshada maanta aan ognahay wax walba oo la soo geliyo sida uu u faafahayo ee degdega ah micnaha ku faafinayo wanaaga Soomaalida tanina waa guul Soomaali u soo hoyatay ayada oo waliba qolooyinkan cunsuriyiinta hadda wixii ka dambeeyo wax marmarsiyo ah oo ay Soomaalida ku sii beegsadaan aysan heli doonin hadii wanaaga Soomaalida la dheehan karo iyo waliba aadka u muuqdaba ay sidani ku sii socdaan hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada qaybta commentiga noogu wadaag muuqaalka like noo saar hadii aanu cusub tahay channelka ku soo biiro subscribe noo saar waana mahadsantiin